injiilka sida Matayos u qoray cutubka 14aad. Waagaas taliyo Herodos ayaa warkii Ciise maqlay oo wuxuu mididiyadiisii ku yidhi, kan waa Yooxana baabtiisaha. Kuwii dhintay ayuu ka soo sara kacay, sidaa darteed shuqulladan xoogga leh waa ku dhex jiraan oo shaqaynayaan. Waayo Herodos baa Yooxana qabtay oo intuu xidhay ayuu u xabisay walaalkiis Filibos naagtiisii Herodiya aawadeed. Waayo Yooxana wuxuu ku yidhi, xalaal kuma aha inaad haysatid, oo goortuu doonay inuu dilo dadkii badnaa ayuu ka baqay, maxaa yeelay waxay u haysteen sidii nebi oo kale. Goortii maalintii la xasuustay dhalashadii Herodos timi, gabadhii Herodiya ayaa dadkii dhexdiisa ku ciyaartay oo Herodos ayay kaga farxisay. Kolkaasuu dhaar ku ballan qaaday inuu siiyo waxa ay weydiisataba. Iyadoo hooyadeed hore ula soo talisay ayay ku tidhi, halkan xeedho igu sii madaxa Yooxana baabtiisaha. Boqorkii waa calool xumaaday, laakiin dhaarihiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuu ku amray in la siiyo. Markaasuu cid diray oo Yooxana xabsiga madaxa lagaga gooyey. Madaxiisiina waxaa loogu keenay xeedho oo gabadhii la siiyey, iyaduna hooyadeed bay u keentay. Markaasaa xertiisii timid oo meydkiisay qaadeen oo aaseen, kolkaasay tageen oo Ciise u warrameen. Ciise goortuu taas maqlay ayuu halkaas dooni kaga soo noqday oo meel cidlaa ayuu keligiis tegey. Dadkii badnaana goortay warkaas maqleen ayay magaalooyinka lug kaga soo raaceen. Goortuu degay ayuu dad badan arkay, wuuna u naxariistay, oo kuwoodii bukay ayuu bogsiiyey. Goortii maqribkii la gaadhay ayaa xertii u timid oo ku tidhi, meeshu waa cidlo, wakhtigiina waa dhammaaday, haddaba dadka dir si ay tuulooyinka u tagaan oo cunto u soo iibsadaan. Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi, uma ay baahnaa inay tagaan, idinku siiya waxay cunaan. Waxay ku yidhaahdeen, halkan waxba kuma hayno, 5 kibsood iyo 2 kalluun maahee. Markaasuu wuxuu ku yidhi, halkan igu keena. Kolkaasuu dadkii badnaa ku amray inay cawska ku fadhiistaan. Isaguna wuxuu qaaday 5 kibsood iyo 2 kalluun, oo intuu cirka eegay ayuu barakadeeyey, oo kibistii u kala jebiyey, oo xertiisii siiyey. Xertiina dadkii badnaa bay siiyeen. Dhammaantood way wada cuneen oo ka dhargeen, oo waxay soo gureen jajabkii hadhay oo 12 dambiilood ka buuxa. Kuwii cunayna waxay ku dhowaayeen 5,000 oo nin oo aan naagaha iyo carruurtu ku jirin. Kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonida fuulaan oo ay hortiis tagaan dhanka kale. Intuu dadkii badnaa dirayo. Goortuu dadkii badnaa diray ayuu keligiis buurta fuulay inuu ku tukado. oo goortii maqribka la gaadhay keli ahaantiis ayuu halkaas joogay. dooniduse durba wax badan ayay dhulka ka fogaatay oo hirarku way dhireen, waayo dabaysha ayaa ka geesahayd. wakhtiga gaadhkii afraad oo habeenka ayuu u yimi isagoo badda ku dul socda. oo xertii goortay arkeen isagoo badda ku dul socda way naxeen oo waxay yidhaahdeen waa muuqasho, oo baqdin bay la qayliyeen.
markiiba ciise waa la hadlay oo ku yidhi kalsoonaada waa aniga ee habqina markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi sayidow haddaad tahay adiga igu amar inaan biyaha kuugu dul imaado wuxuu ku yidhi kaalay oo butros markuu doonida ka degay ayuu biyaha ku dul socday inuu ciise u tago laakiin goortuu dabayshii arkay ayuu baqay oo markuu bilaabay inuu dego ayuu u qayliyey oo ku yidhi sayidow i badbaadi oo markiiba ciise gacantiisuu u taagay oo qabtay oo ku yidhi rumaysad yarayahow maxaad u shakiday oo markay doonida fuuleen dabayshu waa joogsatay kuwii doonida ku jirayna way caabudeen isaga oo waxay ku yidhaahdeen runtii waxaa tahay wiilka ilaah oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka genesaret oo nimankii halkaas degganaa goortay garteen isaga waxay cid u direen dalkaas ku wareegsan oo dhan oo waxay u keeneen kuwa bukaa oo dhan oo waxay ka baryeen inay faraqa maradiisa keliya taabtaan oo kuwii taabtayna way bogsadeen